waxaanu aragnaa oo aan tuhunsanahayba in saxaafad badan la askariyeynayo oo la qarameynayo la shaqeynayno hay'ad gaar ah annaga sirdoonka iyo militariga iyo boolisku way noo siman yihiin kulankaasina waxaanu aragnaa kulan la khalday saxaafadda xiriirta ee ka qayb gashay waxay noqotay in warbaahintii la kala xulafaysto oo kolba kulamo loo qabto oo kolba hay'ado aanan wada shaqeynin amba wada shaqeynin aanay naga dhaxaynin kolba ay u yeedhaan iyagoo marna wariyaasheedii xidhanaya marna oranaya kaalay aynu wada shaqeynay sareynta sharcigu ma aha in qofka ogolaansho la'aan xaruntiisa laga qabto sidoo oo kalena iyo isagoo oo shaqadiisa saxaafinimo gudanaya tacadiyo loo geysto waa qalad in qof bilaadanah gacanta loola tago sharciga in gacanta lagu qaato maaha wariyaashu waxay waramaan bulshada waxay cod u yihiin bulshada maxamed iyo cabdi maalikna waxay si gaar ah uga tilmaamnayeen wariyaasha xaraana in qof si sharci darro la iskaga xidho in si sharci darro uu jeel ugu jiro in xorriyadiisa laga qaado qalabkeygii baanan haynin oo mobiladeedii baanan haynin oo alaabteedii kale private baanan haynin taana waxaanu aragnaa sharci darro kale iyo gaf kale ayaanu aragnaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horreysay ilaahay baa mahadle kulankan ballaaran ay isugu yimaadeen qaybo kamid ah warbaahinta ka howlgasha Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa waxaanu kaga hadlaynaa xariga muddada 16 cisho ku xidhan yahay gudoomiyaha MMTV Maxamed Cabdi Sheekh Ilig ka warbaahin ahaan xariga waxaanu aragnaa sharci darro laba qodob awgeed qodobka koobaad markii hore la xidhayay in sharci darro loo xidhay ilaa imkana la horkeenin maxkamaddii wixii lagu haystay ama cadaymihii waxaan leenahay xorriyadooda loo soo celiyo ama xorriyadiisa loo soo celiyo sidoo kale waxaanu aragnaa arrintan haday si socoto caburin caaga jugleyn iyo inay xukuumaddu cadaadis saarayso warbaahinta waxa kale oo ku darayaa isaguna xiran Cabdi Maalik Muuse Coldoon leeyahay xorriyadiisa loo soo celiyo mar labaad waxaan soo qaadanayaa halayskii ahaa Sheekh Nasiir ahaa war ka daaya warbaahintuna intan kuma joojinayso waxay sii deynayso nagamana hor istaagaysan oo sheegno xaqiiqda runta waxaan leenahay markasta waxaan ku dadaalaynaa qarannimadu waa meel laakiin wixii laga hadlayo ee caga jugleyn ama xarig la xiriirana meel ayuu taagan yahay bismillaahir rahmaanir rahiim maanta waxaanu ka hadlaynaa xariga labada suxufi ee waaweyn gudoomiyaha MMTV Maxamed Cabdi Sheekh Ilig iyo wariye Cabdi Maalik Muuse Coldoon Ilig waxa si sharci darro looga qabtay institutionkiisa iyo xaruntiisa warbaahineed isagoo waliba shaqadiisa gudanaya halka Cabdi Maalik Muuse Coldoon laga soo qabtay gobolka Togdheer labada xarigba looma marin sifa sharciya waa xarig sharci darro ah Ilig waxa u dheer in xaruntiisa la burburiyay qalabkiisa la qaatay waxa kamid ah waliba Maxamed Andar oo isagu kamida wariyaasha MMTV oo aynu arkaynay muuqaalkii la soo baahiyay dhirbaaxadii ku dhacaysay markii la xidhay wariye kasta oo la xidha oo Soomaaliland ma jiro wariye loo soo maray sifa sharciya Ilig iyo Coldoon maanta waxay xidhayeen muddo 16 cisho ciidamada hor keenin maxkamadii rayidka hay'adda lagu tala galay hadii ay qalad leeyihiin tirada qalad baa leedin hadii aanay qalad lahayn fasix lahayd lama hor keenin cadaalad darri ku xidhan yihiin markii koobaadna maaha wariye kasta oo la naga xidhaana waa caynka hal kulanka waxaan isugu nimi inaanu cambaareyno xariga inaanu nidhaahno weer ka jooga oo ragga wariyaasha dalkooda wuxuu qabanayay halkan ku dhaqmay ku dhashay warbaahinta ka bilaabay waaye aragga ku ah u soo celiyo xorriyadoodii wariyaasha yaan la nabcaysiin dalkooda wariyaasha dalkooda yaan nabcaysiin Ilig iyo Cabdi Maalik waxaanu leenahay xorriyadooda loo soo celiyo dhowr jeer hore waa laga hadlay ilaa inta ay xidhan yihiin waanu hadlaynaa aamusimayno waayo waa qayb warbaahinteedii kamid ah warbaahintu ma aha labadan oo kaliya qaar hore la xidha labadana la xidha qaar dambaa la xidhi doona dabada isku wada hayaan iyadoo warbaahintaasi naga xidhan tahay oo labada inay naga xidhan yihiin haddana waxay noqotay in warbaahintii la kala xulafaysto oo kolba kulamo loo qabto oo kolba hay'ado aanan wada shaqeynin amba wada shaqeynin aanay naga dhaxaynin kolba ay u yeedhaan iyagoo marna wariyaasheedii xidhanaya marna oranaya kaalay aynu wada shaqeynay taasoo kalena waan cambaaraynayna annagu dawladda wada shaqeyn baanu leenahay laakiin hay'ad iyadu dadka qabanaysa iyo saxaafadii oo iyadu baadhis ku jirta oo dadka wuxuu soo tabinaysa oo kamaatida iyo ka aan hadli karin iyo ka dhibaato tabanaysa muxuu haayay dhibaatadeeda soo gudbinaysa ma aha in haddana inta qol lagu xidho la yiraahdo waynu wada shaqeynaynaa hadlina waanu cambaaraynayna xariga Ilig ma aha markii koobaad la xidho Cabdi Maalikna ma aha markii koobaad la xidho waxaanu leenahay raggaasi waa rag waaye araga waa rag wadankooda wuxuu qabtay waa rag hadalkoodu meel dheer gaaro waar ka daayo oo ragga xorriyadooda u soo celiya hadii aad dambi ku haysaana geeya maxkamadda rayidka ah waxaan halkan aanu ka cambaaraynayna oo aanu leenahay waxa socda waa wax sharciga iyo dastuurka Soomaaliland ka soo horjeeda xariga loo geystay gudoomiyaha MMTV
maxamed cabdi sheekh ilig oo imika muddo ku dhow 17 maalmood xidhan isla markaana waqtigii sharcigu ogolaa inuu xidhnaado ama maxkamad la horgeeyo aan ilaa imika la horgeynin waxa ayaan darro ah in Somaliland dastuurkeedu wuxuu dhigayo iyo waxa socda ay yihiin wax aad iskaga soo horjeeda oo aan iswaafaqayn sharci darro iyo dastuur jabin weyn ah maadaama oo markii hore qaabkii loo qabtay ay ahayd qaab aan sharciga waafaqsanayn oo waaran iyo ogolaansho maxkamadeed aan lagu soo gelin xarunta MMTV isla markaana laga dhex qabtay ilig oo barnaamij toos ku jira shaqadiisana gudanaya sidoo kalena wariyaashii joogay oo andar kamid ahaa tacaddi loo geystay gacan qaadna loo geystay in waxa soo dhamay ahaayeen waxyaabo ugubka Somaliland oo dastuurka iyo xeerarka Somaliland ka soo jeeda arintaas waa mid aan aad u cambaaraynayno waxaanu leenahay hay'adaha sharci dejinta haday yihiin golayaasha wakiilada iyo guurtida iyo hay'adaha kale ee dhinaca sharci ka shaqeeya dhamaantood waa inay isgarab taagaan waxyaabaha sharci darrada waa inay ka soo horjeestaan waxyaabaha sharci darrada ah ee socda isla markaana ay u doodaan xuquuqda muwaadiniinta uu ka mid yahay maxamed cabdi sheekh ilig iyo cabdi malik muuse coldoon oo ilaa imika aan maxkamad rasmi ah la horkeenin arrimahaas oo dhami waxay muujinayaan inay ka soo horjeedaan waxyaabihii 6 sano ka hor xisbiga kulmiye uu ka ololeynayay ee ahayd sareynta sharcigu ma aha in qofka ogolaansho la'aan xaruntiisa laga qabto sidoo oo kalena iyo isagoo oo shaqadiisa saxafinimo gudanaya tacadiyo loo geysto dhammaan falalkaasi waanu cambaaraynayna waxaanu leenahay muddo ka badan 2 week ayay ilaa imika sharci darro ku xidhan yihiin maxkamad la horkeenana aanay jirin waxaanu leenahay haddii dambi lagu haysto waa in maxkamadda shacabka la horkeenaa oo wixii cadeymaana la dedejiyaa arintooda haddii wax dambiya lagu haysto laakiin talaabo kasta oo arrimahaasi ka soo horjeeda waa wax qaanuunka dalka ka soo horjeeda oo sharci darro ah aanu halkan ka cambaarayno haddaanu nahay saxafiyiinta Somaliland waxaanu leenahay waa in arintaasi si degdeg ah wax looga qabtaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan maanta halkan isugu nimi oo aanu ka hadlaynaa gudoomiyaha MMTV maxamed cabdi sheekh oo sifo sharci darro ku xidhan markii horena sifo sharci darro lagu xidhay oo aan loo soo marin nidaamka caadiga ee ka jira dalka maxamed cabdi sheekh wuxuu xidhan yahay 16 cisho isagoo markii horena si sharci darro lagu soo qabtay 16 ka cisho oo ay maanta ku jirto ma jirto wax maxkamad oo la horkeenay xukuumadda Somaliland iyo cid kasta ay qusayso xariga maxamed ilig in waxaan ka codsanaynaa in la horkeeno maxkamadda shacabka ee xaq u leeyahay hadii dambi lagu haysto in la keeno faylkiisa waxa weeyaan waxa xaraana in qof si sharci darro la iskaga xidho in si sharci darro uu jeel ugu jiro in xorriyadiisa laga qaado qofku waxa weeyaan dhalinyaro ah oo 20 sanadood dalka ugu soo shaqeynaya duruufo badan oo haysta haddana maanta markuu cagihiisa isku taagay in la yiraahdo labadaada lugood kuma soconaysa taasaan anagu aragnaa qof xorriyadiisa laga qaadayo waxaan u aragnaa qof la yiri ma socon kartid yani waxa weeyaan waa maalintu lugihiisa isku taagay in la yiraahdo ma socon kartid ayaan u aragnaa inay sharci darro tahay waxaanu halkan u nimid inaanu cambaarayno xariga xaq darrada ah ee lagu kacay gudoomiyaha telefishinka maxamed ilig iyo sidoo kale wariye coldoon oo isagana magaalada Burco laga soo xidhay waxaan u aragnaa xarigaasi labaduba inay yihiin sifo sharci darro waaran looma soo goosan labadoodaba waxa lagu qabsaday sifo aan nidaamka dawladnimo iyo dastuurka dalka baalmarsan ilig xaruntiisa ayaa lagu soo weeraray waa la qabtay waa la xidhay waa qof muwaadina oo ganacsi u sameeyay company dad buu shaqaaleysiiyay imkaaniyaadka xarun warbaahineed looga baahan yahay oo intuba dhaqaale ay kaga baxaan buu sameeyay waa nin dhalinyara waxay ahayd qofku ma baxsanayo in warqad waarano loo geeyo oo iman kara maxkamadaha laakiinse in la weeraro la qabto sidii qof dambiye waaweyn galay in guriga loogu dhaco waa qalad sidoo kale coldoon Burco in lagu soo xidho oo hargeysa toos loo keeno nidaamka dawladnimada qiyamka bilaadanka ee baalmarsanta waalidkii oo magaaladaasi jooga saldhig baa jira xabsi baa jira wax kasto maxkamadaha jira in Burco lagu daayay ahayd laakiin waxaan u aragnaa in ay danaynayso dawladdu kiiska coldoonna sidoo kale jirdil baa jira andar loo geystay aynu sidoo muuqaalada ka arkaynay waa kiisaska aan duugoobin waa qalad in qof bilaadana
gacanta loola tago sharciga in gacanta lagu qaato maaha waa in sharciga la ilaaliyaa dowladnimada iyo dastuurka dalka waxaynu dhiganay waa in la xaq dhowraa welina ilig maxkamadaha ciidamada la geeyay waa qalad lama geyn karo hal mar baa qofka la geeyaa maxkamadaha ciidamada waa marka kiis wadareed la galo oo qof ciidani ku jiro qofkaas ka awood badan oo geeya laakiinse hadduu qof shacab yahay lama geeyo maxkamadaha ciidamada waad arkaysay ceebtii ka dhacday in la yiri maxay tahay maxkamadaha reedka geeya ceeb bay ku tahay ciddii geysana weli alaanka maanta dhowr iyo 10 cisho 16 cisho filaya ayuu xidhan maxkamadii reedka lama keen بسم الله الرحمن الرحيم halkan maanta anagoo kamid ah qayb kamid ah warbaahinta ku nool magaalada Hargeysa waxaan isugu nimi kulan aan kaga hadlayno xariga loo geystay gudoomiyaha telefishinka MMTV Maxamed Ilig run ahaantii muddo dhowr iyo 10 cisho ayaa uu wali xoriyadiisa leeyahay gudoomiyuhu waxaan cambaareynaa inaan wali wax talaabo ah oo xoriyadiisa lagu soo celinayo aanay wali qaadin xukuumaddu waxaan ku baaqaynaa in xoriyadiisa si degdeg ah lagu soo celiyo run ahaantii Somaliland dunida waxay ka iibisaan ilaahda waxyaabaha ay ka iibiso waxa kamid ah xoriyatu qowlka halka marayso way ogsoonahay sanadka cusub intii uu bilowday waxa la xidhay in ka badan 5 wariye waxaana taasi cadeynaysaa halka ay Somaliland ka taagan tahay xoriyatu qowlka kulankaygan waxa uu daaran yahay inaanu cambaarayno xariga iyo tacadiyada iyo waliba dhibaateynta lagu hayo warbaahinta kala duwan ee Somaliland oo aynu ognahay in bishan gudaheeda in lagu xidhay Somaliland 5 suxufi oo kala duwan waxaanu aad u cambaareynaa oo hadda xidhan gudoomiyaha telefishinka MMTV Maxamed Cabdi Sheekh Ilig oo isagoo hawlo shaqo ku jira xaruntiisa laga dhex qabtay qalabkii telefishinka la urursaday nidaamkaas oo ahaa nidaam runtii aad u khaldan oo sidii muuqaalada laga arkay rag halkaas soo galay u dhaqmiyeen sidii burcad oo kale sida qalabka loo ururinay iyagoo waliba afka soo duubtay arintaasi waanu cambaareynaa sidoo kale waxaanu cambaareynaa xariga lagula kacay wariye samafale Cabdimaalik Muuse Coldoon oo isagana laga soo qabtay magaalada Burco suxufiyiintaasi oo iminka ku xidhan magaalada Hargeysa muddo 17 casho ah aan yiraahdo 16 maalmood iyo 17 habeen waxaanu leenahay xarigu xal maaha haddii aan dib ugu noqdo labadaasi suxufi muddada ay xidhnaayeen lama horkeenin wax maxkamad bulsho ilig waxa la horkeenay maxkamadda militariga arintaasi oo gaf sharci ahayd khalad ahayd aad looga dhiidiyay iyadoo ay tahay oo khaladka hore la galay oo khalad ka sii horeeyay oo ahayd in iyadan loo soo marin nidaamkii sharciga la xidhay la qabtay qalabkii la jajabiyay jirdil la geystay haddana ilaa hadda aan maxkamad la horkeenin waxaan codsanaynaa oo mar saddexaad aan codsanaynaa in suxufiyiinta la horkeeno maxkamadda haddii ay dembi leeyihiin dembigooda lagu qaado oo la cadeeyo oo bulshada loo cadeeyo haddii se aanay dembi lahayn loo soo celiyo xorriyadooda waxa maxkamadda looga meereysanaya anagu ma garanayno sidoo kale waxaan aad u cambaareynaa oo aad uga xunahay in saxaafadii lafteedii loo soo dhigtay oo warbaahintii la kala qaybinayo oo qaybo kala duwan loola fadhiisanayo oo raggii dembiga iyo dunuubta iyo tacadiyada geystay warbaahintii intay u yeedhaan ay hoteelo la gelayaan oo lala hadlayo wada shaqeyn laga dalbanayo arintaana xaraan baan u aragnaa arin khalad baan u aragnaa waxaan u aragnaa arin aan oran karno wax lagu qarinaya dhibaatooyinka jira suxufiyiintu ama saxaafadda Somaliland waxay ku iyo ururka ay ku abtirsadaan ee Soljab waxay ku abtirsadaan Somaliland qarannimada Somaliland bay ku shaqeeyaan ilaa maalintii Somaliland ay la aasaasay ilaa maanta saxaafaddu Somaliland bay ka shaqeynaysay quruxdeedii ka shaqeynaysay nabadgelyada ka shaqeynaysay qarankayga la shaqeynayna laakiin la shaqeyn mayno hay'ad gaar ah annaga sirdoonka iyo militariga iyo boolisku way noo siman yihiin kulankaasina waxaan u aragnaa kulan la khalday saxaafadda xiriirta ee ka qayb gashay in la khalday khaladkaana ay ka soo noqonayaan oo qaarkoodna ay garushan yihiin baan u aragnaa waxaan u aragnaa oo aan tuhunsanahayba in saxaafad badan la askariyeynayo oo la qarameynayo arintaasi waa gaf sharci bulshaday ku tahay bulshaday dhibaato ku tahay haddii saxaafadii la askariyeeyo yaa bulshada u shaqeynaya bulshooy yaa idin shaqeynaya haddii saxaafadii ay noqoto ka amar qaatay hay'ad gaar ah waxaanu leenahay dhabada sharciga ha lagu soo noqdo suxufiyiinta xidhan ha la sii daayo haddii aan wax dembiya lagu haynin ha la sii daayo haddii kalena yaan waan laga gelina cadaaladda ha la horkeeno oo maxkamadaha ha la horkeeno maalintii MMTV laga qabtay anigu waan ku jiray waxa ka soo wareegay 17 habeen baa ka soo wareegay
qalabkaygii moobladeedii iyo alaabahaygii kale gaarka ahaa ayaa 17 habeen xidhan anagaan dambi gelin oo nala soo daayay oo sifo sharci darraa ku xidhan anigii nimadii kale nala xidhay qalabkaygii baanan haynin oo moobladeedii baanan haynin oo alaabteedii kale brevetka baanan haynin taana waxaan aragnaa sharci darro kale iyo gaf kale ayaan aragnaa waxaan leenahay intaabka sharciga lagu soo noqdo maanta waxa halkan isku kaayo keenay waxa weeyaan anagoo kamida qaar kamida ah warbaahinta magaalada Hargeysa waxa weeyaan xariga walaalaha iyo saaxiibada iyo Cabdimaalik Muuse Sheekh Coldoon iyo wali Maxamed Cabdi Sheekh oo 16 cisho muddo maanta laga joogo ku xiran magaalada Hargeysa isla markaana ku xiran sifo sharci darro ah wariyaashu waxa waramaan bulshada waxay cod u yihiin bulshada Maxamed iyo Cabdimaalikna waxay si gaar ah uga tilmaamnayeen wariyaasha dadka sida gaarka u caawiya maxamed muddooyinkii ugu dambeysay wayna gala soconay live-kiisii dad badan buu noloshooda wax ka bedelo caafimaad darro badan oo wadanka jirta soo bandhigay Coldoonna waa baynu ka warhaynaa waa samafale dad badan buu noloshooda bedelay labada wariye oo ku suntan inay yihiin samafalayaal bulsho ayaa waxay si sharci darro ugu xiran yihiin magaalada Hargeysa waxaan ka codsanaynaa xukuumadda Somaliland iyo hay'adaha ku shaqada leh iyo qaybaha sharciga in labada nin wariyaasha la hor keeno sharciga isla markaana ay cadaalad helaan because imika waxay ku xiran yihiin cadaalad darro maxkamad lama horgeyn ra'yiga 16 cisho la iska haysta intaas oo saacadood bay xorriyadoodii maqan tahay dad bay leeyihiin dad baa ku xidhnaa imika dadkii shacabka waxay raadinayaan waxa nimankan lagu xiray waxay u baahan yihiin xog dadkii wax looga waramo anaguna ma oran karno warba kama hayno oo nimanka meel bay ku xiran yihiin cadaalad darray ku xiran yihiin waxaan rajaynayaa inay Maxamed iyo Cabdimaalik bay helaan cadaalad isla markaana sharciga la hor keeno hadii wax lagu hayo hadii kale xorriyadoodii loo soo celiyo caana xilwa cab oo carruurtaada